sanadkan 2026 oo bishiisii lixaad ay sii idlaatay ayaa qarashaadka ku baxay difaaca caalamka wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyay taariikhda iyadoo wadarta guud ee miisaaniyadda military ee dunida ay gaartay 2.89 trilyan oo dollarka Mareykanka ku dhawaad 3 trilyan oo dollarka Mareykanka korarkaas wuxuu ka dhashay xiisadda sii kordhaysa ee caalamka dagaalada gobolka iyo tartanka dhanka hubka ee u dhaxeeya quwadaha waaweyn dalka Mareykanka ayaa galay kaalinta koowaad ee maalgelinta xooggan ee lagu sameeyay dhanka ciidanka wadamada ugu miisaaniyadda badan dhanka difaaca ayaana loo tixgelinayaa dalkaasi iyadoo sanadkani loo qoondeeyay 954 bilyan oo dollarka Mareykanka waa dhanka ciidanka oo kaliya waxa ku xiga dalka Shiinaha kaalinta labaad ayuu galay 336 bilyan oo dollarka Mareykanka ayaa loo qoondeeyay ciidamada dawladda Shiinaha kaalinta saddexaadna waxaa galaya dalka Ruushka isaga oo miisaaniyadiisu ay gaarayso 190 bilyan oo dollarka Mareykanka farqiga u dhaxeeya Ruushka Shiinaha iyo Mareykanka halkaas ayaad ka garanaysaa oo dalka kuwaad 900 oo bilyan ayuu qorsheeyay dalka labaad 300 oo bilyan dalka saddexaadna ku dhawaad 200 oo bilyan Jarmalka ayaa sanadkan soo ciriirsaday kaalinta afraad waxaana uu qoondeeyay 114 bilyan oo dollarka Mareykanka taasoo ka tarjumaysa dadaaladiisa lagu xoojinayo awoodda military ee dalkaasi kadib isbedeladii dhanka amniga ee wadamada qaaradda Yurub Hindiya kaalinta shanaad ayay soo gashay miisaaniyadeeduna waa 92 bilyan oo dollar halka boqortooyada midowday ee UK ay gashay kaalinta lixaad iyadoo oo sida la sheegay ku bixinaysa 89 bilyan oo dollarka Mareykanka Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka ku dooro baaritaan la hubo daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid Ukraine oo dagaal ku jirta kaalinta toddobaad ayay soo gashay miisaaniyadda loo qorsheeyay sanadkanna waa 84 bilyan oo dollar sabab la xiriirta dagaalka ee kula jirta dhanka Ruushka boqortooyada Sacuudiga dalka sideedaad ayay noqotay waana dalka koowaad ee Carbeed waxaana lagu warramayaa miisaaniyadda difaaca sanadkan in loo qoondeeyo ku dhawaad 83 bilyan oo dollarka Mareykanka kaalinta koowaad ee dalalka Carabta ayay sii haysatay boqortooyada Sacuudiga Faransiiska kaalinta sagaalaad ayuu galay 68 bilyan ayuu qorsheeyay Japan waxa uu soo galay kaalinta tobnaad miisaaniyadda ciidankiisa sanadkan waa 62 bilyan oo dollarka Mareykanka taasoo qayb ka ah qorshaha lagu xoojinayo awoodda difaac si looga jawaabo caqabadaha dhanka amniga ee sii kordhaya gobolka Aasiya iyo badweynta Pacifiga tirakoobkan ayaa muujinaya qarashaadka military ee dunida inuu sii kordhayo dalal badan oo sare u sii qaadaya miisaaniyadooda dhanka difaaca ayaa jira si loo casriyeeyo qalabka ay ciidamadooda adeegsanayaan loona xoojiyo awoodda ka hortagga qataraha sidoo kalena laga jawaabo xaalad amni darro iyo jawiga caalamiga ah ee xaaladiisa ay sii kordhayso tani dagaaladii ugu dambeeyay dawladaha caalamka waxaad moodaa markan inay ka fakarayaan maalgelin xooggan oo ay doonayaan inay ku sameeyaan ciidankooda kaalmaha kale waxaa soo galay Kuuriyada Koonfureed Talyaaniga Poland Australia Israel Turkiga iyo sidoo kale Canada Brazil iyo Imaaraadka Carabta ayaana kaalmaha kale ku jira waan arki doonaa budgetka ay dawladahu ay ugu talagaleen ciidankooda iyo wax walba oo ka soo kordha laakiin sanadkan ayaad moodaa inuu noqdo kii ugu maalgelinta xoogganaa ee dawladaha caalamka ay ku sameeyaan ciidamadooda sabab la xiriirta isbedelada dunida ee dhanka amniga annaga imisa ayaan u qoondeynay ciidankeena si ay u difaacaan xuduudaha dhanka dhulka badda iyo sidoo kale hawada mise hawsha kumaba jirno oo mashaariic kale ayaa nagu furan